If you're not paying for the product, you are the product. sidee ayay WhatsApp lacag u samaysaa? wax ku bilaabmay su'aal ganacsi oo sahlan ayaa igu hogaamisay god dheer oo mugdi ah, waxayna saameyn ku leedahay in ka badan 2 bilyan oo qof oo isticmaala WhatsApp-ka. laakiin si aan u fahanno waxa aan ka hadlayo, waxaan u baahannahay in aan dib ugu noqono taariikhda. sanadku waa 2009kii shirkadda Apple ayaa soo saartay iPhone-kii ugu horeeyay kaliya 2 sano ka hor. dunidu waxa ku soo badanayay abab fikrado kala duwan xambaarsan. isticmaalka Facebook-na waxa uu ahaa mid si xawli ah u sii kordhaya. nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Brian Acton ayaa shirkadda Facebook shaqo ka raadsaday, laakiin nasiib darro kuma uusan guuleysan. bilo yar kadib, Brian iyo saaxiibkiisa Yang Kum ayaa waxa ay la yimaadeen fikrad cusub: WhatsApp. baraha bulshada ee aan isticmaalno caadiyan 3 qaab ayay lacag u sameeyaan: xayeysiin, khidmad bixin iyo iibinta xogtaada. laakiin asaasayaasha WhatsApp ma jecleen xayeysiinta. xaqiiqatan shaqadoodii hore ee shirkadda Yahoo waxay u tageen arrimo la xiriira xayeysiinta. sidoo kale ma doonayn inay khidmad lacag ah ka qaadaan dadka isticmaalaya abkooda. ikhtiyaarka saddexaadna haba soo hadal qaadin, maadaama labada aasaase ay ahaayeen dad u ololeeya asturnaanta xogta. haddaba maadaama dadka isticmaalaya abka ay sii kordhiyeen, WhatsApp waxay u baahneed lacag ay ku maalgashato servero iyo shaqaale badan. sidaas darteed WhatsApp waxay bilowday khidmad $1 ah sanadkii, laakiin aysan qasab ahayn inaad bixiso. waxaan dhihi karnaa waxay ahayd sadaqo. haddii aad bixin weydana si bilaash ah ayaad isaga sii isticmaali kartay. sidaasay tahay, WhatsApp waxay ka heshay dhaqaale ay muddo kooban ku sii shaqayn karto, laakiin weli ma ahayn shirkad faa'iido soo xareysa. shirkadaha technology-gu waxay caan ku yihiin inay helaan maalgashi xitaa haddii ay faa'iido soo xareyn waayaan. waxaase laga yaabaa in qaarkood aanay lahayn qorshe cad oo ay faa'iido ku sameeyaan. He's never made a profit. That's right. No, why? How does it? Why? How does that? Why? It seems like a new math. maadaama WhatsApp ay si degdeg ah u koreysay, shirkadaha maalgashiga sida Sequoia Capital ayaa waxay bilaabeen inay ku maalgashtaan malaayiin dollar ayna aqbalaan shuruudaha ay WhatsApp wadato. taasi micnaheedu waa maalgashatadu kuma qasbi karaan shirkadda WhatsApp in la hirgeliyo xayeysiin. sidaasna WhatsApp waxay ku heshay faleembo kaash ah iyo istaraatiijiyad ay muddo kale ku sii shaqayn karto. hel maalgashi waxay yiraahdeen inta aan macmiil lacag ka sameyn lahayn, marka hore waa inaan maalgashiga sii wadnaa, abkeenana aan ka dhignaa midka ugu fiican, taasoo keenaysa macaamiil cusub, haddana maalgashato cusub. garaangartuna sidaas ayay u wareegaysay. WhatsApp waa ab ka faa'iida waxa afka qalaad lagu yiraahdo network effects. macnaheedu waa mar walba dadka abka isticmaalaya ee sii bataan, waa mar walba uu abka sii fiicnaanayo. haddii familkaaga iyo asxaabtaada ay isticmaalayaan, ugu dambeyn adna waad ku soo biiri doontaa. sidaas ayay isticmaalayaasha WhatsApp marba marka ka dambaysa ay u sii kordhayeen. taasina waxay soo jiidatay maalgashato badan oo WhatsApp siinayay lacag ay ku sii horumariso abka. dabcan waxaa jira hal dhibaato oo ay leedahay istaraatiijiyadan: weligaa iskuma haleyn kartid maalgashatada, sababtoo ah maalgashatadu waxay rabaan inay arkaan shirkad ugu dambeyn faa'iido soo saaraysa. ma sheegin haddii aad shirkadda lafteeda iibinayso. Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. waqtigaasi dunida oo dhan ayaa la yaabanaa iibkan. $19 billion! Come on, is it really worth it? xaqiiqatan sida ay xogaha soo jeedinayaan, kaliya 9 bilood kadib iibsashadii, WhatsApp waxa ay soo saartay $1.2 milyan oo dollar, taasoo ah khasaare aad u weyn. haddaba waa maxay sababta ay u bixisay Facebook $19 bilyan oo dollar? lacagtaasi waxaa 20 jeer dayax gacmeed loogu diri karaa meeraha Mars, ama waxay dhisi kartaa 13 burji khaliifa. waxaan ognahay Facebook in uu lacag ka sameeyo ururinta xogtaada, kadibna uu u isticmaalo xayeysiin fursad kasta oo uu kugu helo. waa wax waliba oo ay WhatsApp ka soo horjeeday. fariimo la helay oo dhex martay Mark Zuckerberg, aasaasaha Facebook, iyo saaxiibkiisa ayaa waxa uu u sheegaya saaxiibkiisa haddii uu u baahdo macluumaadka ardayda jaamacadda Harvard oo ah meesha laga bilaabo shirkaddan. laakiin saaxiibkiisa marka uu weydiiyo sidee, ayaa waxa uu oranayaa way i aamineen.
It was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize for that, and I'm sorry. labada kun lix iyo tobankii WhatsApp waxay ku dhawaaqday in abkeeda ay ka dhigtay bilaash macnaheedu tahay halkii dollar ee marka horeba aan qasabka ahayn in gabi ahaanba la joojiyay taasoo u muuqata mid wanaagsan laakiin haddii aan hurdada ka kacno xaqiiqdana aan u soo noqono waxa iska cad sababta ay Facebook u iibsatay WhatsApp iyo sida ay dhaqaale uga samayn doonaan Facebook waxa uu iibsanayay userska ama isticmaalayaasha iyo xogtooda mar walba oo Facebook ay xog badan hayso waxa sii kordhiya awoodeeda WhatsAppna waxay haysaa lambarada kugu jira fariimihiina iyo macluumaadkaaga gaarka ah taasi micnaheedu waa habdhaqankaaga online-ka kaliya lama hayee xitaa offline-kaaga waa la hayaa sababta labaad ee uu Facebook u iibsaday WhatsApp waa inuu joojiyo tartanka ay kula jirtay waxaa la sheegaa Zuckerberg inuu maqlay in shirkadda Google iyo WhatsApp uu wadahadal u socday isla markiiba waxa uu soo bandhigay lacag ay adag tahay inay diidaan shirkadda Facebookna caado ayay u tahay inay iibsadaan shirkadaha tartanka kula jira si ay baraha bulshada iyaga kaliya u xukumaan labada kun iyo toddoba iyo tobankii mid ka mid ah aasaasiyaashii WhatsApp Brian Acton ayaa is-casilay kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo Mark Zuckerberg ilaa iyo heer uu Twitterkiisa ku soo qoro delete Facebook kadib waxa uu bilaabay ab cusub oo uu u bixiyay Signal isagoo tartan la geliya isla abkii uu isaga aasaasay inkastoo Signal uu ahaa ab aan faa'iido doon ahayn hal mar haddii aan dib u fiirino qisada ninkan waxa noo muuqanaysa qiso cajiib ah marka hore Facebook ayuu shaqo ka doontay laakiin uu ku guuldareystay kadib WhatsApp ayuu sameeyay kadib Facebook ayuu ka iibiyay ugu dambeyn lacagtii uu ka helay WhatsApp ayuu isla WhatsApp tartan kula galay laakiin waxa la yaab leh muxuu marka horeba u iibiyay WhatsApp isagoo og in wax kasta ay isbedeli karaan adiga haddii aad booskooda ku jiri lahayd $19 bilyan oo dollarna lagu soo hordhigi lahaa ma diidi lahayd